1, 2, 3, come on! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة كسر دو ولكن محمد قاب أو ينسع السينية إن أرمها بالشدة كل دقن أما بالشدة الصومالية ده كل دقن تلك التركية عقبتها كلها يستا تركيا إن دعوة هدي أد نقول صوتها فضلا سبسكرايب لايك يا شير هدي أد هوري نوجا مده هينا أدي جا يدعونا يو لايك يا شير سو وجاره ولا لا حاجة كله كل دقن dalka turki iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba daawade warkii oo fidsan arrimaha aynu ka hadlayno waxa weeye dhowr qodob oo muhiim ah oo aan ku aragnay dalka Turkiga iyo Soomaalida ku dhaqan dalka Turki qodobka koowaad oo ah marka Soomaalidu ay raacayso basaska ama tagaasida sida u dhaqmaan lambar 2 oo ah Soomaalida sida ay mataqaana markay ama guryaha ku jiraan ha noqoto ama guryaha ay iibsadeen ha noqoto sida u dhaqmaan lambar 3 oo ah Soomaalida meelaha meheradaha ama mataqaana maaragtay supermarketyada ama de meelaha ganacsiga sida u dhaqmaan lambar 4 oo ah meelaha nasashada xadiiqadaha nasashada loo yimaado ama meelaha maaragtay lagu talagalay in lagu nasto sida beeraha iyo meelaha la midka iyo sida Soomaalidu u taqaanaba dhowrka qodob baan ka hadlanaa qodobka u dambeeya aan ka hadlano shanaad waxa weeye coronavirus iyo dalka Turkiga sidoo ku yahay hadeerto iyo xaaladiisa qodobada muhiimka ayaa rabaa daawada inaan dul taago muhiimna inoo ah dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibad muhiim u ah inta ka bacdi daawad wad ogtihiin dalka Turkiga labadii sano u dambeysay hada warka si faahfaahiyo labadii sano u dambeysay Soomaalidu aad bay u soo galayeen dalka Turki balse ha ahaatee Soomaalidu baabuurta taksiyada ama waxay raacaan basaska Soomaalida waxaa jira qof mataqaana hadda dhawaan soo galay iyo mid in badan joogay qofkii inta badan joogay waa uu og yahay ama wuu la socdaa xaaladda ama nidaamka bulshada ku dhaqan meeshaas laakiin qofkii cusbaa oo dadka inta badan cusub nidaamkii ma fahansana marka waxa waajibaad ina saaran ah ama xil ina saaran ah inuu walaalkeena Soomaaliyeed si aynu bulshada dhexdeeda ama bulshada aynu la noolnahay aynu mataqaana ay inooga arkaan si maaragtay dhaqan wacan ama de maaragtay Soomaalinimo fiican leenu ku amaano in aynu in la wadaagno baraarujino ayaa xil naga saaran yahay daawada marka basaska la soo raaco meelaha basaska la isku yimaado oo maaragtay basaska laga raaco ama gurigaaga hortiisa ha noqoto ama suuqa la ka soo raac basasku inta badan waa aragtayo way buuxsamayaan afkaasay marayaan dadkii markay meelihii kuraastii la fadhiisan jiray markay buuxsamaan 1 3 2 iyo 3 ba marka xagga maaragtay la istaago baska uu buuxsamo Soomaalidu waxay bilaabayaan waxa weeye inay bilaabaan hadal sheeko iyo mobile ay ku hadlayaan waxaa jira dad markaa waaweyn oo baska ku dhex jira oo qaar ay yihiin qaar ay haday dooraan mataqaana xanuunsanayaan hadalkii qaylada ay dhibsanayaan marka Turkidu iyo de caalamka dhan waxa sharci ah ama nidaamku ku fiican yahay in qofka markuu soo koro baska dad la saaran yihiin in uu mataqaana edaab iyo akhlaaq sameeyo in mataqaana baska dhexdiisa uu ka ilaaliyo qaylada iyo mataqaana hadalka iyo buuqa waxa arkaysa walaalo Soomaaliyeed oo baska intay soo fuulaan ama taxi intay soo fuulaan siba basaska ay mataqaana barta sheeko ka dhex bilaabayaan dadkii ay dhibsanayaan waayo hadduu mid cunsuriya jiro oo maradiisuna marada taabata aan ogolayn bulshadu wax kasta way leedahay marka inuu iska baraarujino ayaa inoo fiican marka waxaan inii sheegay walaalaha Soomaaliyeed waxaan ogeysiinayaa in markay basaska soo fuulaan mobilkooda silent iska geliyaan hadday kursi ku fadhiisanayaan hadday istaagayaanba ay intay baska ay saaran yihiin in ay aamusaan oo afkooda ay xidhaan kadib marka ay ka degaan waxay doonaan ha sameeyeen telefoonka doonaan ha ku hadleen say doonaan ha u dhaqmeen taas waa iga talo talabaad aan rabay inaan ka hadlo waxa weeyana qodobka labaada xagga mataqaana guryaha daawada saad u ogtihiinba ama aad la socotaanba Soomaalidu waxay ka iibsataa dalka Turkiga guryo bay aad uga iibsataa waxay aadna way u soo galaan oo guryaha ka kireystaan labadaba markaas waxaan ogeysinayaa bulshada Soomaaliyeed ama dalka Turkiga ama guri ka iibso ama guri kale ku jir aday ku tala laakiin
waxaa loo baahan yahay guryaha waad taqaaniin turkida maaha sidii wadankii soomaaliya walaal maaha. waad la socotaanoo haddii ilaahay kuu ron yahay waa dabaq, waa baarti baarti, waa kala sarsareeya, waa laga guribaa dad baa kaa hooseeya, dad baa kaa sareeya, midigtaada bidixdaada dad baa kaa degan. in aad qaylada ka ilaalisid ama mataqaanaa aad maaragtay ixtiraamtid waa shay muhiim ah. waxaad arkaysa walaalo soomaaliyeed oo guri ku jira oo laga hooseeyo, ay qayb ka hooseyso, oo ay deriskooda qaar ka mid ay ka hooseeyaan, oo mataqaanaa isbacsanaya, oo digdigtii xaggii sare markaad mataqana dadkii isbacsadaan qofkii kaa hooseeyey wuu maqlaya, wuu dhibsanaya, qof xanuunsanaya, qof weyn, wax kastay dadka way leeyihiin. in aynu taana joojino waa iska wacyigelinanaa. dhammaanna waxayna saaray inaynu ilaalino sharafta iyo qiimaha soomaalinimo, inaynu ilaalino wadan kasta aynu joogno, ama America joog, ama Canada joog, ama Australia joog, ama Yurub iyo Asia, meesha doonto joog, Carab iyo Islaam meesha doonto ku noolow. waxaa inoo fiican in aynu haddaynu Soomaali nahay bulshada dhexdeeda aynu ku yeelano sharaf iyo qiimo. dalka Turkiga saad ogtihiinba waa laga jecel yahay, Soomaalida aad iyo aad baa looga jecel yahay. Turkida iyo Soomaalidana waa ogtihiin xiriir badan baa ka dhexeeya, inagoo aynu ka faa'iideysanayno xiriirka Soomaalida ka dhexeeya, in aynu wadankii aynu ixtiraamno, dadkii aynu ixtiraamno, bulshada dhexdeeda aynu ixtiraamno baa inoo fiican daawade. intaa ka bacdi taas waa qodobka labaad aan kaga baxayo. qodobka labaad, qodobka saddexaad aan raba inaan ka hadla waxaa weeye daawade meelaha meheradaha guud. waad ogtihiinoo haddii ilaahay kuu ron yahay waa laba qaybood. waa meherad ay Soomaali leedahay, qayb ay Soomaalidu leedahay, iyo qayb ay Turkidu leedahay. qaybta ay Soomaalidu leedahay daawada dhib ma laha, waa Soomaali, saa doonta ugu sheekay, saa doonta ugu kafta, saa doonta ugu qayli. laakiin waxaa fiican meelaha Turkidu ay leeyihiin meheradahooda, iyagu way soo galaan, waxbay ka iibsadaan, way ku sheekaystaan, hoos bay u sheekaystaan, laakiin wax qaylinaya arki maysid Soomaali aan ahayn. wax mataqaana taagan oo qaylinaya aan Soomaali ahayn arki maysid. marka waxaan ku baraarujinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo gaar ahaan ku nool dalka Turkiga inay mataqaanaa ixtiraam sameeyaan bulshada dhexdeeda, ama bulshada ay la nool yihiin inay ixtiraam sameeyaan, oo ay mataqaanaa wixii maaragtay dhibaato ay iska ilaaliyaan ama dhib ah baan kula talinayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed. qodobka saddexaad aan ka hadlaya waxaa weeye meelaha nasashada oo lagu nasto. in Soomaalidu waad ogtihiin Turkidu sideedaba meelaha beeraha ama maaragtay lagu nasto oo lagu talagalay in lagu sheekaysto, jawi degan, ay qofka uu mataqaanaa iyo kusoo qaatay light. Soomaalidu markay yimaadaan waxay sameynayaan haddii ilaahay kuu ron yahay, waxay bilaabayaan inay meesha yimaadaan, inay isku soo xoomaan. xag corona ayaa jira, uma fiicna dadkii marka, oo xanuunka waa kusii fidaya, waayo waa ogtihiin coronaha adduunka dhan saameeyey. marka walaalkay qaaliga ah waxaan kuu sheegayaa in adoo ixtiraamaya dadka beerta ama meesha cagaaran oo quruxda badan ama ku nasanaya oo maaragtay ku sheekaysanaya, adoo ixtiraamaya inaad joojisaan micnaha qaylada. aayar u sheekaysta, aayar u kaftama, aayar wax telefoonadina waxa ku hadlasaan ku hadla, laakiin qaylada iyo buuqa ka ilaali bulshada iyo mataqaanaa nidaamka dadkan ay ku dhaqmaan. waad ogtihiin waa nidaam xidhxidhan weeye, laakiin idinku is xidha imalihi. laakiin waxaan leeyahay waa markasta sheeke oo hadal, laakiin hadalkaagii hoos u dhig, oo qayladaadii yaan la maqlin, si caadiya bulshada dhexdeeda ugu noolow. waxaan kaloo aan rabaa inaan la wadaago oo qodobka isna kala ah oo muhiimka ah. waad ogtihiin dalka Turki iyo dhammaan Soomaali oo dhan meel kasta ay joogaan, waad ogtihiinoo waxaa ka jira meel kasta xanuunka coronavirus baa ka jira. marka xanuunkaas ilaahay subxaana watacaala dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan ha ka badbaadiyo. in aynu yarayno isku socodka faraha badan, isku booqashada meelaha lagu soo xoomay. marka daawade markastana waxaa fiican in aynu ilaalino sharafta calankeena Soomaaliyeed meel kasta aynu joogno, iyo ummadda Soomaaliyeed sharaftooda. in la yiraahdo Soomaalidu waa dad fiican, waa dad wanaagsan, waa dad dhaqan fiican, intaasaa sharaf inoo ah. laakiin in la yiraahdo Soomaalidu waa dad qaylo badan,
guryahay degan yihiin habeenkii darisku kama seexdo, baabuurta markay la socdaan basaska dadka saaran naftiiba u keenan oo qaylay kala daaleen. In la yiraahdo mataqaanaa meelaha nasashada ama goobaha ama beeraha nasashada waa ku qayliyaan oo waa laga fadhiisan kari laayahay qaylo. Waa inoo sharaf daro meel kastaynu joogno adduunka dacaladiisa dal iyo dibadba. Ta kale oo aan rabaa inaan ka hadalno waxaa weeye waad ogtihiin dalka Turkiga doorad baa la furay, meel kasta waa la furay meheradihii, meelaha ganacsiga calashaan free baa laga dhigay meel kasta. Waxaa la eegayaa isbuucyada soo socda meelaha xanuunku inuu kor u kaco coronavirusku iyo inuu hoos u dego. Sidaa darteed daawade waxaad samaysaan Soomaaliyay ilaaliya nidaamka maaragtay haddii Ilaahay kuu roon yahay sida maaragtay in la isku soo xoomo ama maaragtay dadku isku soo xoomaan inoma fiicna. In aynu maaragtay mataqaanaa aynu maaragtay isku soo xoonno ama meheradaha sidii hore la moodo maaha. Waa in aynu sidii hore aynu samayn jirnay guryaha ugu jirnay guryaha loogu jiro. Waa in xanuunkan laska ilaaliya, Ilaah baa wax ilaaliya. Intii islaam ah oo xanuunsanaysa oo corona hayana Ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad degdega ayaa u weydiinaynaa Soomaali meel kastay joogaan. Daawadayaal waxaad samaysaan barnaamijkan ama wacyigelintan sii share gare, siina gudbi usii gudbi walaalkaaga Soomaaliyeed. Waxaa laga yaabaa mid shalay soo galay ama bil ka hor soo galay oo aan fahansanayn nidaamka dalka gudihiisa ama dalka Turki. In mataqaanaa hadduu daawado maaragtay qodobada muhiimka ah aynu ka hadlano in mataqaanaa uu maaragtay uu wax ku qaato uu markuu maaragtay suuqa u soo baxo ama baska raacayo uu soo xasuusto oo mataqaanaa uu isdhaho aamus marka maaragtay beeraha iyo meelaha nasashada uu xasuusto dee qof la wacyigeliyey weeye moogtahay oo wixii markaa og in mataqaanaa maaragtay qofkii dee maaragtay qofka wixii wax ku qaato oo maaragtay isdhaho wallahi waa run qodobadaas muhiimka ah ku dhaqan oo ku dhaqan inuu isdhaho baa dhici karta. Marka bulshada waxaan leeyahay dhammaantiinba meel kasta ay joogtaan muhiimaddu Turki kaliya maaha. Soomaaliga ku dhaqan Canada ama Maraykan ama meel kasta inuu mataqaanaa loo soo gudbiyo oo sidaa dee aanu u waaniyayno dhammaan ama u ogeysiinayno bulshada dalka Turki ku dhaqan nidaamkan iyo maaragtay maaragtay hawlahan jira. In mataqaanaa maaragtay ka kalena oo walaalkeen ahna uu ogaado baa loo baahan yahay kuna dhaqmo isbaraarujino dhinac kastana aynu walaalkeena Soomaaliyeed aynu ka dhisno wixii fikrad iyo waayo aragnimo ah. Aad baan idin salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed.